السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب تعاو waxaan idinayaa sheeko qosol badan oo ah nin Mareykan ah oo afkii Soomaaliga barbaranaya oo haddana ku mahmaahayo kuna heesaya ka bogasho wacan adinka qosli doona. Channelka dadku cusub tahay subscribe dheh kambalkana furo like iyo share kama marno. waxaan rabaa inaan mayga ku soo dhaweeyo Paul Marino oo loo yaqaan Geedi Raaga Rooble ila soo dhaweeya Geedi. marka Rufai aad baad u mahadsan tahay inaad inoogu azuuntay barnaamijkan sharafta leh. salaan buuxdo aadna idin keenaya kooxaheen oo dhan oo Buulbarti joogi jiray iyo Mark Erikson iyo kulli dadka ay joogi jireen. marka magacaygu waa Paul Marino ama naanees ahaan Geedi Raaga Rooble. ninkii igu bixiyay oo magaciisu waa Islaaw Xasan Guuleed isoo wardiye ah isbitaalka oo nin fiican buu ahaa alla ugu naxariisto. hay ma agtiga miya marka kalkaali caafimaad baan ahay doctor miihi waxaan dad badan markay rag arkeen oo caafimaad ka shaqeynaya waxay yiraahdeen war doctor aniga doctor miihi markaas waxaan dhahayaa nin xil qaada eed qaad taas maraba shaqadeeda aan jecelahay. kalkaali caafimaad baan ahay xaaskaygana Shamso kalkaali oo kale oo kooxaheena isbitaalka degmada Buulbarti aan ka shaqeyn jirnay waqtigii 86 iyo 89 oo mar hore ahayd. runtii haddii aan ka fakiray anigoo 26 sano baan ahaa markaan tagnay aruur ma lahayn waqtigaas. hadda 56 baan ahay awowna waan ahay iyo ayeeyo Shamso. marka waqtiga wuu ordayaa. marka hadda waxaan ka shaqeeyaa isbitaalka Hennepin daktarada ayaan la shaqeeyaa ayada takhasuskeedii waa ayada qaybta lafaha takhasuskeedii waa gacmaha in la qaliyo iyo marmar dadka Soomaali way igu yimaadeen oo marka mahmaa Soomaali ah u sheegay waxa uu sheegay ogow lugta waa la dhibaa gacanta waa la dhooraa ishi waa la dheefsadaa oo markaasay ku yireen waryaa ku baray waa cilmigii Soomaaliya maqli jiray. laakiin intaan bilaabay horta waxaan arkay waftigii iyo daktarado iyo dad oo reer Buulbarti oo dhab ah oo run ah. anigana nin Mareykan aan ahay oo 3 sano bis baan joogay. waxaan u malaynayaa sidii mahmaa Soomaali oo ay yiraahdeen baqal fardo la daaqaya fars bay ismooda. marka laakiin runtii aad iyo aad dadka Soomaali way noo soo dhaweyn jireen. marka oo marmar waxaan ka yaabay laakiin ma taqaan anoo isbitaalka joogay dadka markay u yimaadeen oo aan salaamo waxay yiraahdeen war adiga miya wiilka af Soomaali yaqaan. markaasaan iri aniga nin 56 jir ah oo awoo ah oo wiilka af Soomaali yaqaan loo yeerayo waan ka yaabay. ninka af Soomaaliga ma dhahdid aniga wiil yar mihi. waa ogahay dadka Mareykanka waxay qiimeeyaan aruurtinimo iyo dhalinyaronimo laakiin aniga sida Soomaali ah waa ogahay dadka dacweyn ayaa maskax weyn sida mahmaada nin 20 jir intuu geedka boodo tala ka boodo. marka dadka waxaan u sheegay kan ciiraaneed ma aha aniga nin weynaan ahay. marka wax kasta waqti haboon buu leeyahay. waxaan xusuustay markaan Minneapolis soo guurnay 1999 bay ahayd oo isbitaalka Hennepin waxaan ka shaqeynayay Dr. Osman Harare oo nin aan ah oo marka waqtigaas ma jirin kalkaaliyo badan oo Soomaali ah laakiin hadda way tir badnaayeen
taas waa loo baahan yahay waana wax wanaagsan meel kasta aad tegaysaa waa arkaysaa ama daktaro Soomaali ama kalkaaliyo ama shaybaar ama shaqo kasta la arkaya Soomaali baa qabsanaya taas loo baahan yahay markaan arko dad badan oo dadaalayaan in dib u dhiska isbitaalka Bulburti ay sameynayaan aad baan u faraxsanahay runtii maxaa yeelay waa ogahay shaqadan waa arrin ka badan hal qof runtii sidii aan waxaan xusuustay niman xamaali ah oo shaqaynayay xamar ayaga way heesayeen markay shaqaynayeen waxay yiraahdeen quraansho ururte bula waajita quraansho ururte bula waajita saas bay yiraahdeen oo waana arki jiray quraansho bula jiidaya indhahayga waa ka arki waana run waa sida far kaliya foolma dhaqdo waa runta marka waqtiga gaabnaa oo 3 sano oo aan reer Buulay baan ahaa dadka aad bay noo soo dhaweyn jireen runtii wayna martiqaadayeen oo waa isla shaqaynay waxaan maqlay daraad Rufaaci baa ii sheegay umalasadii oo muxubbo hare ee wili way joogtaa Bulburti waan ka yaabay wax badan baa isla shaqayn jirnay marka shaab badan baan cabnay aad shaab badan baan cabnay iyo hal mar ana geel baan cabay mar laba ma cabayo waa ogahay idinku waxaad qabtiin caafimaad inay tahay laakiin inagoo shuban bis waa dib marka inkastoo Bulburti waa magaalo yar waa dadka oo reer Bulburti ah waa dad wanaagsan oo caan ah oo qof kasta waxay faanayaan magaaladoodii ma fahamtay marka anigana iyo inkasta aysan ahayn hal qabiil ah dadka si nabad bay isla noolaayeen runtii saas baa arki jiray marmar aad baan ugu xumahay markaan arkay dadka Mareykanka ayagoo fahmi iskhilaaf baa jira marmar dadka Mareykanka iyo dadka Soomaali anigana markasta dad Mareykan waxa uu sheegayaa dadka Soomaalida waa sida idinku tiin waxay dadaalayaan mustaqbalka caruurtoodii nabad bay rabaan horta ogow diintooda aad bay u qiimeeyaan laakiin waxay yihiin dad gacmo furan aad iyo aad marka aniga ahaan geedi ahaan iyo xaaskayga Shamso wax badan baan ka faa'iideysanay dhaqanka iyo ilmiga Soomaali oo dhalinyaro kasta oo Soomaali ah waxa uu talinaya bal afkiina hooyo baro sababtoo wax badan haddii aad turjuntid ma fahmaysid xagga ilmiga Soomaali marmar anigana waxa uu sheegay tartiib waa baran kartaan laakiin marmar waxa dhacda dadka waalidkooda waxay yiraahdeen wargeediyo abdiyo adiga doqona tahay ma si fiican ma baratid abdiga ka fiican marka kaas loo baahno waxa la rabaa inaad dhiirigelisid sababtoo sida dadka Soomaali ay dhiirigeliyeen xamar markaan nimid waxaan niri subax wanaagsan oo dadka waxay igu yiraahdeen mataqaan war afkoodana baratee nin fiican aad tahay marka dhiirigeli caruurtii way baran doonaan oo marmar maadaama Dr. Cusmaan Isaaq dadka qaar waxay u mareeyeen inaan ahay Barwaani marka marmar mahma Barwaani waan tuuray mid oo la dhaho sidaad u baranaysaa lug marow laazim laamiga ku qaadaya marka Ahmed Ali Hayli Allah u naxariisto soo reer Bulburti ah isaga macallin uu noo ahaa hogaamiye iyo walaalkeen buu ahaan jiray oo wax badan buu noo sharaxay ku saabsan heesaha iyo sheekooyin iyo mahmaayo iyo dhaqanka Soomaali
runtii markaad qof ajnabi tahay markaad meel tagtid adiga wax ma taqaanid runtii ma fahmi kartid haddii qof kuu sharaxaya haddii kale wax ma fahmaysid marka aad iyo aad macallin buu noo ahaa oo mar labadeenna waa isla soconnay buulobarti nin baa noo soo yeeray wuxuu yidhi war axmedow war ninkan maraykanka hadduu af soomaaliya hadduu yaqaan hadalkan ha fasiro markaas waxaan is idhi waa ogahay wuxuu dhexi doonaa cagta wax ka day waa saxal waay markaas wuxuu yidhi mataqaan wuxuu yidhi okay wargeediyo dhegayso kan ka fasir wax aanan odhan waan idhi odhan maayo wax aan idhi ma odhan maayo igu yeedha ninkii yidhi waa tidhi wax aanan odhan aan idhi u yidhi ha yidhaahdo waa wareeray oo marka axmed waxa uu dhehi lahaa mahmaadi aabbo kan yar iga eliyo kan weyn iga soo day marka laakiin isaga wuu diiday inuu igu fasiray wuxuu yidhi warniyahow u sheeg geedi mar kale laakiin tartiib u sheeg marka tartiib buu ii sheegay haddana waa fasiray 5 sano ka hor isoo afrika uu tegay oo saaxiibadiisu buu salaamay oo heestii ayuu nagula dardaarmay heestii waa hees caan ah laakiin heestan mid oo maaragtay beryahan oo kale ma ah laakiin waa sida tan soomaalideyni haddii ay siinahatay soomaalideyni haddii ay siinahatay waa subax wanaagsane calankana salaama nin lagu sahdo ha seexan hilbaa siitaa ha seexan nin lagu sahdo ha seexan hilbaa siitaa ha seexan ha seexan soo jeedo si weyn u feejigno marka heeskaanu noo baray marka heesahan iyo waxaan markaa maqlo adiga ma fahmayo laakiin isaga wuu tartiib wuu ii fasiray walaalayaalow isbitaalka buulobarti oo sanayin badan ka hor la bilalaqaystay oo eber laga degay in dib u dhistaan waa wax wanaagsan runtii waxaan xusuustay sheeko oo nin gabadhiisa aad bay u jiraneed ayaa ciise masiix u yimid oo baryay inuu gurigiisa tago laakiin inta ay soconayeen nin kale oo gurigii ka yimid wuxuu yidhi macalinka ha dhibin gabartaada ay dhimatay ciise wuxuu yidhi laakiin ha baqin way raysan doontaa markay guriga gaareen waxay arkeen dadka barooranayeen laakiin ciise wuxuu yidhi ha ooyanina gabartii ma dhiman way hurdaa guriga buu galay gacantii gabartii uu taabtay isla markiiba ruuxi bay ku soo noqotay way fadhiistay marka aniga wax kasta waqti uu leeyahay waa sidii heesta soomaali kale oo maar hore markaad soomaali joogay axmed wuu noo baray waa geed harkii waa labada gelin godorkii waa dada kala guurheyhey balgarooso hadalkaas sida goodir xeregalay u gooxay golaheena sharafta leh u goohay ma ku gaadhay hadal go'asho guulaguma ware gogosaane hoga'anta ho marka hadalkayga waan sii gabagabaynayaa waxaa la dhahaa hadal badan haan ma buushee runta in la sheego ay fiican tahay aniga runtii ma u malaynayo inaan buulobarti aadi doono laakiin runtii ilaah waxaan kaa baryayaa inuu idin garab galo oo inuu muradkiinna sahalo
nabadgelyo